maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley ayaa maanta socdaal ku tagay degmada Allaybade ee ka tirsan gobolka Gabiley waxaana si wada jir ah u dhagax dhigeen wada 1 kiiloomitir oo laga hirgelinayo gudaha degmada Allaybade sidoo kalena waxay xariga ka jareen mashaariic horumarineed ay dawladda hoose ee degmada Gabiley ka hirgelisay degmada Allaybade waxaana goobtani laga dhagax dhigay goobjoog ka ahaa maamulka degmada Allaybade madax dhaqameed iyo isuduwayaasha wasaaradaha gobolka waxaana ugu horeynba degmada waftigani uu hogaaminayo barasabka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Allaybade maanta waxaanu dhagax dhigaynaa wado 1 kiiloomitir oo ay inagu caawisay ama ay ka bixinayso kharashkeeda dawladda hoose ee degmada Gabiley aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu dhagax dhigaynaa hadda waa wadadaas oo ay bilaabayaan insha Allah dhawaan aad iyo aad buu gudoomiyaha inoo dhagax dhigay barasabka gobolka Gabiley Cabdikariin aad iyo aad baan u mahadnaqayn maayir ku xigeenka degmada Gabiley xogaya fulinta dawladda hoose xildhibaano kamid ah golaha deegaanka ayaa sidoo kale ka hadlay dhagax dhigga wadadani 1 kiiloomitir waxaana xuseen inay miisaaniyada ugu dareen waxaanu halkan ka dhagax dhigaynaa kiiloomitir aan ugu tala galnay magaalada gudaheega inaanu dhigno waxaan doonaynaa maanta shacabka reer Allaybade inaanu u sheegno inaanu taa horena ka qayb qaadanay tu cusubna halkan ka dhagax dhigayno horta waxa weeye Allaybade runtii weeyaan waxa nooga muuqata inay wax badan oo aasaasigii noloshii ka dhiman tahay ha yeeshee annagu dawlad hoose ahaan inbutku ugu badnaa waxaan gelinay waa wadada Allaybade waxaana loogu tala galay maadaama ay guddidu sheegi weyday wax qabadkayagii waxaanu doonaynaa inaanu dadka tusno oo magaalada dhexdeeda dhagax dhigno dadkani ma odhanayaa maanta waxaynu joognaa waxyaabihii aynu taaganahay xukuumaddan maanta uu madaxweyne ka yahay Muuse Biixi Cabdi ay ballan qaaday horumarkii baa inoo bilaabmay waanu socday horumarka horena uu socday maantana horumarkii ugu weynaa wadadii ayaa magaalada bartankeeda Allaybade kiiloomitirkii ugu horeeyay la dhagax dhigaya alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta oo aanu halkan u taaganahay inaanu dhagax dhigno wadadii 1 kiiloomitir ahayd ee aanu miisaaniyada ugu darnay 2020ka Allaybade waxaanu u dhiganaa wada rooga oo aanu ku xidhiidhinano wadada Allaybade Arabsiyo aanu ugu darnay oo cashuurtii dawladda hoose ee degmada Gabiley waxaanu leenahay in ay wadadaasi reer Allaybade ay ilaashadaan oo ay dayactirkeed iyo waxeeda dhamaanteed ayaguna ilaashadaan mudana gudoomiye waxaan xariga soo jarnay hoolkii waarkii dhalmada iskuulkii kuraastii iyo dayactirkii degmada Allaybade waxa naga go'an dhamaanteen inagoo isku duuban wixii asaasiga ee ku saabsan ee iyada ay jirto inaynu ka qabanno halkan waxaanu dhagax dhignay 1 kiiloomitir oo wadada daamurka qaybta la yiraahdo wadooyinka aaman silent road waxaana ku xidhmaysaa wadadana Allaybade waxay sugaysay barasab cusub dagaar mudane gudoomiye ku soo dhawaada aad iyo aad barasabka gobolka Gabiley ayaa gunaanadkii ka hadlay dhagax dhigani reer Allaybade waxaan leeyahay golaha deegaanka ee degmada Gabiley waxa uu idin qabtay wax la dafiri karayo maaha iminkana 1 kiiloomitir oo magaalada dhex maraya degmooyinka dalka waxaan u malaynayaa marka degmooyinka waaweyn laga yimaado ma filayo gobolka Gabiley mooyaane degmooyin aan ku arkay in laamiya dhex marayaan waa yar yihiin marka degmooyinka Gabiley nasiib waxay u yeesheen inay madax wanaagsan iyo dad wanaagsan iyo ganacsato wanaagsan iyo salaadiin iyo cuqaalba ay u guntadeen iyo shacabkuna ay garab qabteen marka waxa weeyaan gamca wada jir bay wax ku goyn karaan reer Allaybadeyna waxaan leeyahay idinkuna ka qayb qaata Farxaan Cabdi Ciise Honkable TV degmada Allaybade magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha